habeenkii inay jiraan waxyaabo aadan arki karin balse iyagu ay ku arkaan. Sheekadan waxay ku saabsan tahay ayaan ayaa habeenka xaafadeeda waxay ku noqotay kaligeed. Habeenka waxaa da'aya roob iyo dabaylo xooggan. Ayaan waxay daawanaysay moolkeeda waxna lama socon, balse ma ogan in habeenka ay nolosheeda bedeli doono. Hal mar ayaan waxay maqashay shanqadh. Waxay isku dayday inay hilmaamto, balse shanqadhu waxaa la moodayay inuu qof guriga dhex socdo. Markay isku dayday inay xag hoose u soo daagdagto, waxay aragtay albaabka xaafadda oo furan. Wayna naxday ayaan waxay damacday in ay soo eegto qolka hooyadeed, balse qolka hooyadeed waxay ku saaraytay arrin naxdin leh oo ah in muraayaddu ay ku qoran tahay waan ku arkaa. Wali codkiina wuu socday sanqadhii. Ayaan way carartay markay aragtay qolka in lagu jiro, balse waxay aragtay qof madow oo qoslayo oo afkiisu dhig yahay. Sheekadan waxay nooga digaysaa xilliyada roobka iyo dabaylaha iyo mugdiga in carruurta xaafadda looga tagin. Wax walba oo dhacaya ha la iska ilaaliyo. Haddaad jeceshahay sheekooyinka noocan oo kale ah, mudane subscribe noo saar. Waad mahadsantahay.